toddobaadkiiba inta bisha Ramadaan 3 jeer aynu kala soconno si toos ah su'aalaha toddobaadkan na soo gaaray siiba qaybta soonka iyo cibaadada soonka ku saabsan weydiiyaha koobaad wuxuu leeyahay waxa jira Sheekh Maxamed dad saacado badan sooma oo saacaduhu ay ku dheeraadaan sida wadannada qaarkood dhacda shaqo iyo camal la ku jira dadkaasi hadday soonka kari waayaan xukunkiisu muxuu noqonayaa saa'ilka labaad wuxuu leeyahay haddii aan afuro iyadoo weli aan la adimin salaadii maghrib anigoo moodaya inuu adinkii dhacay soonka maalinta xukunkiisu muxuu noqonayaa weydiiyaha saddexaad ama saa'ilka saddexaad wuxuu leeyahay muxuu noqonayaa xukunkiisu qof iska cunay oo iska cabay isagoo weli moodaya inuu ku jiro aadaankii hore yani waa xilliga suxuurtii buu iska sii wadaa aadaanka dhacayana wuxuu moodayaa aadaankii hore daakiraadda mise waaba aadaankii dambe ee waxa weeyaan lagu joojinayo suxuurta qofkay sidaasi ku dhacdo muxuu noqonayaa maalintaa isagana xukunkiisu su-aasha afraad ee ugu dambaysa su-aalaha ku saabsan soonka waxay leedahay gabadha soo qortay haddii aan ku jiro uurka bilihii ugu horreeyey cabsina ay isoo maaragtay food saarto aan u cabsado naftayda muxuu noqonayaa xukunka inaan iska afuro bisha Ramadaan oo aan dib ka soo qalleeyo Sheekh Maxamed ku soo dhawo alxamdulillaah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد qofku markuu soomayo saacado dheer saacado badan dabcan waa intay qoraxdu soo jeedo culimadu islaamku waxay u badan yihiin ama qowlkooda isugu dhacay inta ay qoraxdu soo jeedo inuu qofku soomo hadduu awoodi kari waayo oo uu xejin kari waayo soomkii wuu iska afurayaa uu soo qallaynaya hadhow waayo qofkii gaajo u dhiman la odhan maayo ama haraad waxyaabuu qofku la afuri karo waxaa ka mid a inuu naftiisa uga baqo geeri iyo khatar inay gasho hadhowtuu soo qallayn doonaa intuu maalintaa iska afuro jawaabtaa markaynu soo gaabinno oo caynka ah labadan su-aalood ee isu cagsiga ah midi waxay leedahay qofkii wuxuu cunay intii aan qoraxdii dhicin mid kalena wuxuu leeyahay wuxuu iska sii waday cunnadii waagii oo bariyey labaduba maalintaa way qallaynayaan qofka wax cunay iyadoo aan weli qoraxdii dhicin iyo qofka wax cunaya adaankii dambe oo dhacay kadib oo waagii markaas caddaaday labaduba way soo qallaynayaan maalintaa waxaa u daliila qowl اllahi tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu الصiyaama ilى اleyl habeenkii iska cunoo iska caba baa ilahay wi keeroo waagu caddaado markuu waagu caddaado laga bilaabo joojiya cunnada ilaa intay qoraxdu dhacayso markaa shardigaasaa laga waayey labadoodaaba marka maalintaas waa qalle su-aasha saddexaad ah ruuxii dumarka ahayd way uur bay leedahay waa la eegaya hadday soomi karto ruuxaa dumarka ee uurka leh oo iyadana aan dhib ku imanayn ilmaha caloosheeda ku jirana aanu dhib ku imanayn way iska soomi laakiin haddii iyada iyo ilmaha ay u baqdo way iska cuni waanay soo qallayn doonta qallahana inay dumarku ilaawaan maaha markay Ramadaan dhammaatee wakhtiga ruuxan dumarkii jaanis hesho ee ilmihii ay umushay ka guriso ama dee caanihii uu ka maarmuu cunno cuni karo ha soo qallayso markaa ayaan la ilaawin qallaha wallaahu aclam jazaak allahu khayr Sheekh Maxamed ilaahay ku barakeeyo annagana nagu anfaco su-aalo waxaa jira iyaguna ku saabsan cibaadooyinka kala duwan ee addoonka saaran saa'ilkan wuxuu leeyahay su-aashan soo qoray islaantayda waxay haysataa dahab ay ugu tala gashay inay u isticmaasho qurux oo ay isu qurxiso oo qadarkiisu dhan yahay 200 garaam oo dahaba wax sakiihi ma ka waajibaya dahabkaas ay ugu tala gashay inay isu qurxiso saa'ilka labaad wuxuu leeyahay waxaanu ku ducaysanaa had iyo jeer marka xilliga iftaarku soo dhowaado si jamaaciya
وقف نجم إذا نكون هنا نود عين تيدا كلنا آمين تانو ومارة تكو عاونا أرنتاس شرعيا دين إسلامكو ما هيك قبتها سؤال صدحات حلي سائل كسوق قري صلاتها ما تجمعين كرا دأهان أوجد يعني أنا جو دأ وحاجة صلاة يقول علوس تاي صلاة ما يسوقين كرا سيدي قف كمسافر كوكله سائل كأفراد حلي هاي ما يبنان تانو قرية كتو كان يا إن أنا مساج كان نقول له كحده قرية كانوا كتو كان يا مساج كان نقول له نوان كحدنا يا هالكاسنا كلا سعنا يا ريت اسم بنان تاي سؤال شو قدام بيسأل حلي سائل كسوق قري ما بنان تاي قف مركو دينتين قرآن نقول له آخريو سودو شيء محمد الحمد لله سؤال شهراء أولاً سكمل نقول له يذهب كان يلعقتها يتمر كسكو قرحية مسألة خلافية وهي وعلماء هاي ما يلا بدأ بعيد هذين وحيسوا بديهن لقوا ملها ذهب كي العقد تمر كسكو قرحية مركز صدق شرطين لقاه الله وحوين أي ذهب هي العقد هديهن معدنها كلا لا يسكو قرحية وحبل لقوا مله شرط قلبات وحوي وإنه يهي ذهب كاسي مستعمل وده وحي استعماله سوى إنه يأنو كيده هين hadduu meel iska yaalo dee waa lagu leeyay oo islaada ama kayda ku noqdo ama labisyo labaadii ha iska noqdo ama masaariif ha noqdo waa lagu leeyay markaana marka saddexaad isticmaalkiisu waa inuu mubaax yahay oo aanu xaaraan ahayn oo dahab rag uu haysto waa xaaraanta inuu isticmaalo ana isticmaalka ragga marka siyaabahaasi ama dumarkiiba si xaaraan ah ay u isticmaalayso saddexdaa sharti marka laga helo saka laguma leh marka saasaa culimada islaamku ay u badan yihiin su-aashan kale ducada jamaaciga qabla alifdaar may ka soo aroorin nebiga sala allahu calayhi wasalam marka afurku soo dhowaado inay dadku aamin yidhaahdaan isaguna uu ducayn jiray marka marmar waa lagu ducaysan karaa laakiin in joogto laga dhiga maaha oo joogtadu waxay keenaysaa inuu shayga cibaado muayana u egaado ducadu waa cibaado laakiin in waqti gaar ah lagu beego bidcay noqonaysa marka mar waa la sameyn mar si jamaaca isaga ducaysan marna si kala gaargaara marka joogtadu baa laga deyn doonaa su'aasha kale ee oranaysa hadii daadaydu weyntii salaadaha ma jamcin karaa salaadaha marmar qofku uu jamcin karaa markuu ama yara tacbaansan yahay ama de xanuun hayo laakiin inuu joogto ka dhiga maaha kol hadduu salaad walba halkeeda ku tukanayo waayo hadigii nebiga markaad u noqotay iyo dhaqankiisii dee muu sabab la-aan muu jamcinaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam marmar un bay ahayd markaa wakhtiyada qaarkood oo aada yaro cuslaato ama kiciddu kugu adkaato ama aada yaro xanuunsanayso waad jamcin kartaa waad isu geyn kartaa salaadihii laakiin joogtaha ka dhigin su-aasha kale qofku hadduu dhinto qur-aankii ma loo akhriyayaa daliil ma laha masale khilaafiya weeye culimmadu ay isku khilaafeen laakiin wax daliilahoo ku soo arooray oo la weheshanayo oo nebiga ka soo arooray ma jiro sala allahu calayhi wasalam culimmada yidhi waa gaadhayaa hawaabkaa iyo ajrigaa loo qofka intoo qur-aanka la akhriya laleeya ilaahay u gaadhsiina meelo kale uga qiyaasanaya markaa waxa fiican qofku inuu qur-aanka isagu akhristo oo hawaabkiisii ilaahay uu weydiisto waxyaabaha la isku waafaqsan yahay qofka dhintay inuu ajrigiisu gaadhayana sunnaha iyo qur-aanka ku suganna in markaa lagu dadaalo sida sadaqada iyo ducada loo ducaynayo oo kale wallahu aclam sheekh waxaa ilaahay ku barakeeyo intaynaan su-aalaha qaybta kale u gudbin su-aal baa jirtay halkaas ulahaa saa'ilka soo qoray gurigaanoo jooga ma ku xidhan karaa masaajidka nagu dhow isku xidhashada salaada la isku xidhanayo shuruuday leedahay shuruudaheeda waxaa ka mid ah in intiqaal suuroobaysa inaad imaamka la jaan qaado oo ama aada arkayso ama aada maqlayso shuruudaha waxaa ka mid ah inay isku dhow yihiin oo uu maaragtay jiro sida nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam dee in labadan qof la isu aanayn karayo oo masaafadaanay kala fogeyn masaajidka gudihiisa inay ku wada jiraan ama itisaal inay si uun u xidhiidhsan yihiin markaa ma suuroobayso
inay iskaga xidhaan tvgii ama masaajkii oo aada uga fog oo fooq uu ka soo eegayo qofku ama idaacaddiiba ma suuroobayso taasi oo ma bannaana wallahu aclam ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro su-aalaha qaybta ugu dambeeya wuxuu leeyahay saa'ilka koowaad sida hadalkeeda ka muuqata waa ruux dumara hooyaday baan u khidmeeyaa oo aan xanaaneeyaa hablaha kale aan walaalaha nahayna waxay igu maaragtay eedeeyaan inaan hooyo sixray oo waxaan u qabtay maxaad ugu nasteexayn lahayd sheekh hablahaasi su-aasha labaad wuxuu leeyahay weydiiyaha soo qoray ma bannaan tahay malabka bahalka la ydhaha dhuunyaaluhu sameeyo dhuunyaal oo xidhanoo malab sameeyo mana reer magaalku aad u garan maayaane bahalkaas malabkiisa inaan cuno diinta islaamku maxay ka qabtaa su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray shirkad baan u shaqeeyaa alaabtaan shirkadda u iibiyaayo iibiyaanu ahay alaabtaan u iibgeeyaa kadibna dukaan yaroo gaaro anigu aan leeyahay ayaan mararka qaar anigu alaabta u baahdaa oo dukaankayga u baahda alaabtan shirkaddu hayso alaabtaanu ma iska iibin karaa oo iibiye iyo iibsade isla mar keliya ma noqon karaa su-aasha afraad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay lacagta uu shaqeeyo qofka faaliyaha ah ama xidigiyaha ah ma la isticmaali karaa oo biil ahaan ma loo qaadan karaa su-aasha shanaad waxaa jira buu leeyahay saa'ilka soo qoray shirkado xoolaha gowraca oo bisinka ka taga waxaan filayaa waddannada aan muslimka ahayn ma loo shaqayn karaa oo lacagtooda ma la qaadan karaa su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay weydiiyaha soo qoray waxaa jira wakhtiyada ramadaanta gaar ahaan musalsallo lagu matelayo saxaabada oo kaasi waa hebel iyo kaasi waa hebel la leeyahay qaarkoodna kufaartaaba lagu matalaayo abujahal iyo abulahab iyo waxyaala noocaas oo kale ah arrintaas daawashadeeda diinta islaamku maxay ka qabtaa falyatafadal sheekh maxamed su-aasha hore ah hooyo inaan sirxay baa laygu tuhmay haddii adigu aanad waxba samaynin tuhunkaasi waxba ku yeeli maayo oo qofka muslimkaa waxaanu ahayn marka lagu sheego dee waa dhib isaga soo gaadhayboo haddii uu ku samro dee dembi ajri baaba ku yeelanaya halkaa sixirka waxaa la yidhahdana qofka de in la iskaga sheego un maa haddii aan caddayni jirin waa iska tuhunu tuhunkuna ma wanaagsanaa ina bacda danni ithm sidaa ilaahayba uhi malaha qaarkii waa dembi marka iyagana waxaad odhan doontaa yar waani adiguna dadaalkaaga waad sii wadi doontaa hooye aad ugu samafalayso su-aasha la xidhiidha malabka dhunyaalaha malabku dee xayawaanada malabka sameeyin buu ka mid yahay oo waa malabku waa kashinidoo kale un waxaynu ku diidna ma hayne waa nicmo ilaahay waana la isticmaali karaa waa xalaal weeye su-aasha sheegaysa sharkad baan waxu soo iibiyaa markaa kolka wax la ii diro dukaankayga ma ka soo iibin karaa maya waa caqadka labadiisa daraf ma tawaliyaysid adugu oo mar qura ma noqonaysid iibiyihii haddana soo iibinayay marka aad dukaankaaga ka soo iibinayso wax qof sharkadda ka mid ah oo matalaya waa inuu jiraa adiguna dee waa inaad dukaankii matalaysa iyo hantidaadii sharkaddiina waa inay qof matalayso qof matelayo sidaasay markaa ku ansaxaysaayo iijaabkii iyo qabuulka ama caqadka labadiisa daraf laba qofoo dee saxeexa waa inay jiraan tuhmaadina way iska jiri kartaa in had iyo jeer la yidhaahdo isaga uunbaa isu macaashay ama isu faa'iideeyey marka taasaasaad ku saxaysaa su-aasha kale ee odhanaysa qofka faaliyaha wixiisa ma la cuni karaa maya rasuulku wuu xaaraantinimeeyey sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can hamani اlkalbi wa mahri اlbagyi wa xulwaani اlkaahin saddex arrimood buu nebigu diiday ayga in la iibsado oo lacag laga sameeyo iyo ruuxa dumarka ah ee jidhkeeda iibsanaysaa waxay halkaa ka qaadanayso isna waa xaaraan waxaa kaloo xaaraana waxa uu qaadanayo faaliyuhu ama sixirluhu lacagtu dadka ka qaadanayo iyaduna waa xaaraan marka kol hadday isagii ka xaaraantay adigina waa kaa xaaraan waayo waa dariiqo xaaraana baa lagu soo shaqaystay qofkana waxa waajib ku ah dembigaa iyo macsiyada inuu iskaga baxo
adiguna saasaad kula talinaysaa inaad ka sii faa'iidaysataa waa xaaraan su-aashan kale ah qofku haddii uu shaqaynayo shirkad xoolaha gowracda oo bisinka aan u qabanaynin waad eegayo haddii gowracu sax yahay oo labadii biyo buufle iyo labadii hunguriba la jarayo waana waxaad ka geysan doontaa in bisinkana lagu daro marka haddii aan lagu darin neefka gowraciisii xalaal buu noqonayaa maadaama culimo badani ay ku tegeen gowraca inaanu shardi u ahayn bisinku shardi uma aha in la gowraco laakiin waa sunno aada u adag qolyaha qaarkoodna waa masale khilaafiya laakiin qeyb ka mida culimada maadaamaay ku tegeen inaanu gowraca shardi u ahayn bisinku oo sunno mu-akada uu yaho sunno wanaagsan uu yahay laakiin kol haddii sida kale gowracu u hagaagsan yahay waad isaga shaqayn kartaa taladaadana waad ka geysan kartaa wax ka sii wanaagsan haddii aada heshana meeshaa ka sii wanaagsan baad u shaqo tegi insha allah filimada noocan oo kale ah ee la matelayo musalsalaadka ah culimada islaamka casrigan aynu joogno way ka digaan waayo wax badan oo qaladaada ku jira oo been baan laga waayeyn rag iyo dumar isdhex galana lagama waayo asxaabtana waxa ay ku tahay nuqsaan iyo xaqiraan oo nusuusta iyo daliilada marka la eego dee cisi weyn iyo sharaf weyn bay asxaabtu leeyihin marka had iyo jeer filimada noocaas oo kale ahi nuqsaan baa ugu jirta asxaabta iyo nooc been abuura iyo rag iyo dumar isku dhex darma siyaasad dad kale ay ka dambeeyaan bay ahayn musalsaladani sidaa daraaddeed daawashadooda iyo matalaadooda way ka digaan culimmadu iyo markaa in la iska daayaa wanaagsan wallaahu aclam ilaahay subxaana wa tacaala sheekha inoo barakeeyo cilmigiisana ilaahay subxaana wa tacaala inagu anfaco waxaa naga xasuusina in wixii su-aalaha aad kusoo diri kartaan gmail-ka ah sheekh dirir halhal@gmail.com ilaahay subxaana wa tacaala kulanka xiga khayr iyo wanaag isku keen soo celiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu